قال كي يقول رأي ماشي اللي قدري ماشي يقول رئيس إنجليز لقى جهر يمت ماشي يقول رئيس نسر كالا أو كسو ريتاير جروبي هندية انتو يمادو حاج موسى إجرهي ويمادو وميتر أجاشان له هندية كسو ريتاير جروبي والله سو قريت شري مركا جفرنر كلا سو مقعابو بل سو قريت شري بقرده أما بقر لا تشو ميتر حاج موسى إجرهي سركالكي ugu horeysay ee Soomaaliyeed Somaliland ee kulliyad galo akademigi halkan uu ka soo jeedaa waa Xasan Kayt sarkaalkii biliiska ugu sareeyay ee Somaliland waa in halkan uu ka soo jeedaa aabihii waxbarashada Somaliland Maxamuud Axmed Cali halkan uu ka soo jeedaa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ayaa maalin inta wasiirka uu ahaa wuxuu igu yiri gobolka Togdheer waxa lagu tijaabin jiray wax kasta oo isbedel laga rabo in lagu sameeyo waxa lagu eegi jiray magaalada Burco in dadku ogol yahay iyo inaanay ogolayn haday Burco diido macnaheedu waxa weeye Somaliland oo dhan waa diid haday Burco ogolaatana macnaheedu waxa weeye Somaliland oo dhan waa ogol Burco waxay u ahayd magaalo madax ilaa 19 waxay magaalo madax u ahayd gobolada bari aniga wooway cali koore halkan 1938 baa Cerigaba mushaarkiisa laga soo jarayo waxa la keenay Burco waa Cerigaba ku xigtay degmo la aqoonsado Ingiriis aqoonsado mar beeshay tan ka ahayd 1908 Cerigaba 1926 baa degmo laga dhigay afarta kalena 43 dagaalkii koowaad ee adduunka berbera hargeysa booraba iyo lascaano 43 baa degmada laga dhigay miisaanka ugu badan ee Somaliland magaaladana laga xukumi jiray haddana in laga xukumo ay ganacsiga ugu ballaaran ee ummad leedahay xooluhu ahaayo halkan ay ahayd miskiin Allahu naxariista Cabdiraxmaan Ducaalo nin gudoomiyaha banka ahaan jiro reer Cerigaba wuxuu ii sheegay in arafooyinka dalkii la isku oran jiray Soomaaliya Burco marka laga hadlayo bangiga Burco wamba la oran jiray marka arafadu soo gaadho waxa la soo diri jiray agaasimaha guud ee bank waxa iman jiray agaasimaha guud ee ganacsiga iyo agaasimaha guud ee maaliyadda laanta Burco fariisan jiray 16 gobol 18 gobol Soomaaliya la isku oran jiray inta laga bixiyo Burco lacag ya ka badnay laanta Burco ya inta kala ka badnay hadii SNM laga hadlo iyada liirgareysay hadii Somaliland ku dhawaaqisteedii ay noo soo noqonana warbiyaan halkan laga dhawaaqin